وجهي دقن كان وركيس iga dhaaf odayga surta moogta naag u neceb yana meel qaldana soo gashay ku sheegayaan ilkaha waa feeg annaga ilkahan feeggeed nala hor imaanaysid waan ku caajisnay iyo sankan duran een macnihiisa aad garanaynin naagta markay sanka bidix durato dabadaa laga cunaa adaa la mar qaldan soo gala hadda bas qaldanna waa soo raacde ma fahantay horta hal midaan ku dhahayaa haddaan nin raga ahaan lahayd maalin walba dumarka maada dhigteen raggaa soo dhexgali lahayd intaa social media ku jirta waxaa ka hadlaysa gabar waxaa ku dhaganeed gabar maradeeda so aniga hal mid is oran karaa marka koowaad nin waxaa tahay nooca markay 60 jir noqdaan meelahaas ku qaniisooba ma fahantay sababtoo ah hadaada adiga dabada laga mara aada ahayn gabar kumaada dhigteen waxaa tahay nooca dumarka lama seero markay ninkooda laga dulqaado caalam qaldanaa joognaa so adoo kale wuu ku badan yahay caalamkan marka labaad soo dhaxgal ragga sida ragga loo soo dhaxgala baro marka saddexaad dumarka Soomaaliyeed adiga tan ku dhashay tan kula dhalato kala ma ahan ha u maleynin sababtoo ah haddii guri saxan ah ka soo toosi lahayd hooyo fiican iyo abaayo fiican ee kula dhalan lahayd dumarka sida loo ixtiraamaa baran lahayd marka waxay muujinaysaa adiga niyo ama wicil inaad tahay ama naag jirkeeda ka ganacsatay inay ku dhashay ama dee guri qaxbad aa ku soo dhex kortay soo saas darteeda baad u garanaysaa sida dumarka loo ixtiraamo maadada labaad maxaa u diidaysaa adaa afka la soo galay waa runteed ayada xaniyeeda meesha ku timid labadiina ayada xaniya leh milyan ma fahantay ayadaana kartideeda xagga isku keentay marka adaa soo doontay oo la mar qaldan soo wacay hal mar qaliis laguma noqdo konton anagoo ah kuwa seen awow konton dabadaada naga ilaashanayo dhilada ku dhashay hooyada aboos